sagaalkii bishii aan soo dhaafnay August, Kenya waxaa ka dhacay doorashada guud ee madaxtinimada, taasi oo ay ku tartamayeen madaxa mucaaradka Raila Amolo Odinga iyo madaxweyne ku-xigeenka iminka William Samoei Ruto, taasi oo dhalisay isqaqabsi badan. Doorashada oo in muddo la isku haystay ayaa ugu dambeyn waaxda doorashada ee IEBC loo yaqaan waxa ay ku dhawaaqday in uu guuleystay madaxweyne ku-xigeenka iminka William Samoei Ruto, kaasi oo loo saadaalinayay inuu madaxtinimada dalka uu ku guuleysto. Hase ahaatee dhigiisa Raila Amolo Odinga oo ahaa madaxa mucaaradka ayaa gebi ahaanba qaadaxay natiijadii ka soo baxday doorashada, isaga oo sheegay in ay dhacday wax isdabamarin isla markaasna codadka lagu shubtay. IEBC iyo madaxa IEBC Chebukati ayaa waxa uu ka gudbiyay dacwad ka dhan ah in ay isdabamarin iyo musuqmaasuq sameeyeen, si hoosena ay ula shaqeynayeen madaxweyne ku-xigeenka iminka William Samoei Ruto. Maxkamadda ayaa waxa ay u fadhiisatay dacwadda galkaasi Isniintii la soo dhaafay. Maanta oo Isniin ah ayaa waxaa la rajaynayaa maxkamadda inay ka soo saarto war cad ninka guuleystaha dhabta ah iyo cidda uu noqon doono. Ruto miyaa maxkamadda mar kale u ansixini doontaa in guushiisa ay tahay mid xaq iyo xalaal ah, ama madaxa mucaaradka Raila oo isaga ku andacoonaya in doorashada la xaday ayaa maxkamadda waxay u ogolaani doontaa in doorashada dib loogu celiyo, ama isla markaas isaga codadka laga xaday oo isaga uu yahay guuleysta. Si walba ay ahaataba ma jirto qof saadaalin horudhaca ka bixin kara waxa maxkamadda maanta ay ku dhawaaqi doonto. Ruto oo shalay taageerayaashiisa kula hadlayay Nakuru ayaa waxa uu sheegay in uu ku qanci doono wax walba oo maxkamadda ka soo baxo, walow Raila oo isagana taageerayaashiisa la hadlayay uusan sheegin mid taasi la mid ah, isla markaasna uu sheegay maxkamadda inuu isaga ku guuleysan doono. Hase ahaatee Raila si cad muusan u sheegin inuu aqbali doono wax walba ee maxkamadda ka soo baxa sida Ruto uu cadeeyay. Dhanka kale, waaxda nabadgelyada ee booliiska ayaa waxa maanta ay xadideen isku socodkii dadweynaha, ayagoo sheegay in la ilaaliyo nabadgelyada isla markaasna loo hoggaansamo awaamirta booliiska